nabadeed uga diro beelaha ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool ee dhibaatada weyn kala gaadhay marka ugu horeysa waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryaynaa dadkii dhintay inuu Allah u naxariisto waxay dhaawacana Ilaahay uu caafimaad degdeg ah siiyo labada beelood ee walaalaha ah oo dagaalkoodu soo noqnoqday muddo waxaan u diraynaa xisbiga u dirayaa baaq nabadeed oo nu leenahay colaadda hal la joojiyo waa la ogyahay dagaalkan wuxuu bilaabmay xilli hore 2004 ku siman waa soo noqnoqday muddo dhowr iyo 10 sanadood ah waa la isu yimi hawl badan baa laga galay waa laga heshiiyey muddadii koobnayd ee colaadda laga nastay dhulka deegaankaas iyo dadka deegaanba waxa martay naacaw caafimaad oo weyn baa martay dadka intii dhimatay soo noqon mayso inta nool in loo taliyo waxa kale oo aan ugu baaqaynaa runtii mahad u soo jeedinayaa odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood iyo culimada oo arrinta gurmad degdeg ah ka galay aad iyo aad baan ugu amaanayaa waxaan leeyahay halka xukuumaddu farba ku gudan maamulka kulmiye ee kala dambeeyay shalay ceelaf weyn ahayd oo inta goor soo noqotay aynu ognahay maanta taa koonfur maxaan ku raahdaa Laascaanood laga hadlaya oo yana intay soo noqnoqotay aynu ka hadlaynaa waxaan qabaa halka waa dhaliil maamulku runtii uu leeyahay baan u arkaa waxaan leenahay walaalayaal dagaalka joojiya oo isla yaab oo isla xishooda oo waxana wadaan oo maalin walba soo noqnoqonaya tawana wax qaadataan wax garad baaleedihiin garaadaa leedihiin xaaladdu meel xun bay maraysaa way soo noqnoqotay arrintani waxa weeye xukuumaddan waa in ay gaadhaa go'aan degdeg oo aanay ka iman afar cisho kaga iman in colaadda la joojiyo dagaalka la joojiyo xabadda la joojiyo nabadayn aan wax shuruudihi ku xidhnayn la hirgeliyo si loo badbaadiyo inta hadhay loona abuuro jawi nabadeed oo lagu soo celiyo walaalnimadii iyo wada noolaashihii iyo degenaanshihii midna waa la qabaa odayaashu sida yiraahdeen oo dagaalka soo noqnoqday ee 10 sano ka badan soo noqnoqonay waa dhaliil marka kaana waxaan leeyahay waxaan Ilaahay ka rajeynayaa inaan nagu soo noqon waan mahadnaqana waa la qabaa odayaasha iyo garaadada iyo waxgaradka gobolka Sool ee gurmadkii koowaad sameeyay nabad waxay u baahan tahay in la adkeeyo in la xidho waxaan adkeyn kara nabadda qarannimada adkeyn karta doorka xukuumadda leh waxa loo baahan yahay door adag oo lagu nabadaynayo in xukuumaddu ay ka qaadato oo cid kasta oo nabadda wuxu dhimaysa talaabo adag laga qaado dhinacu doona baa ka soo jeedo waxa qabaa ma ragliin ma garaadaliin ma culimaliin marka arintaasi waxay u baahan tahay in degdeg loo dhameeyo in bakaynu ka soo baxnay ceelaf weyn oo waqti badan naga qaaday nabadeynteedu marka meel kale inay nagu furanto waxay ahayd runtii waxaan la filayn war naxdi badan buu ahaa war xanuun badan buu ahaa waxaan ku soo gudaanadaya mar labaad baaq nabadeed baanu halkan ka soo jeedinaynaa